waddanku in loo abtiriyo uma baahna beesha dhexe durada maanta beesha dhexe uma baahna Somaliland cid aan u abtirin ba u baahan tahay run ahaantii xisbiga waxaan halkan uga daahfurnay saadaasha markaan eegnay kitaab fur baa la yiraahdaa adada Soomaaliga garanaysaan markii xaaladda Soomaaliland ay akhriyay 1993 halkan baa loogu kitaab furay Somaliland roobkii ka da'ayna wuxuu wada caam yeelay gobolada Somaliland oo dhan dawladnimadii waa tii ku dhisantay ee dagaaloodayaashiina Allah u naxariistay madaxweynaheedii marxuum cigaal oo ugu kitaab furay mar labaad waxaan rabnaa mar labaad waa kii madaxweyne riyaalada dimuqraadiyadda Somaliland ugu daahfuray kana tagay waddanka oo mid ah min darif ilaa darif maanta waa kitaab furkii hilaa saadaashan eegnay hilaa halka ka dhashay Somaliland buu wada gaari doonaa Ilaahay yiraahdo wuxuuna noqon doonaa mid lagu reeyay raxmaadkiisa iyo ramaadkiisa iyo taladiisa waxaan rabnaa hogaamiye caqli badan karti badan aqoon badan maamulkana aqoon u leh Somaliland waxaan leeyahay walaalayaal idinka maarano idinkuna naga maaratiin mar labaadna fartiina dhexda ka qaniinina maanta tashadaan leenahay oo aqliyada meel ay ku jirto oo dadkan hadi karta oo ku soo celin karta midnimadeedina wadnaayeen lagu taageeran leenahay Somaliland oo dhanba walaalayaal waddanku in loo abtiriyo uma baahna in loo taliyo oo talo wanaagsan loo taliyo u baahan yahay cidii u talin lahayd waxaad adagtaa saadaashiisa sida waxa uu xulanayo iyo dhalinyarta aw xushay wuu ku mahadsan yahay bahda professorku qaybta uu ka siiyay haweenweynaha Somaliland ururka walaalayaal reer Somaliland waxaan wada leenahay nadeeqa waxaynaanu abtirin bayna deeqa abtirsimadii meel weyna gaarsiin weyday haddaan beesha dhexe durada maanta beesha dhexe uma baahna Somaliland cid aan u abtirin ba u baahan tahay idinku waa kala ficil qaadanaysaan waad is eegaysaan waddankii maanta xaalad adag buu ku sugan yahay badbaadi u baahan haddaan reeda u lahayna mar labaad inaan badbaadinaan diyaar u nahay manala qaadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.